الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نكسن دقستيال داوديال كسر دوادا برنامجك ويدي دكتورك وتضبط كي مرات كداوتان برتان فيسبوك كلنا هاي الصومالي سيريان هوسبيتال isku soo naqad wanaagsan dhageystayaal daawadayaal barnaamijka waxa maanta marti ku ah Dr. Cabdikariin Axmed Maxamuud oo ku takhasusay qaliimada iyo daweynta cudurrada haweenka waxaan maanta barnaamijka ciwaanka uu noqon doonaa dhalmo la'aanta ayaan ka hadli doonaa ugu horeyn Dr. Cabdikariin ku soo dhawow barnaamijka waan ku dhawahay barnaamijka xali waad mahadsantahay walaalayaal waxaan ka hadlaynaa waa dhalmo la'aan إله بقى أوبت كبحيو أنت أنا دكتور كيسواليس أنا قلنا وحرّان إلى وذاقو سيدا بدل ملأنتو ووح إلهي سبحانه وتعالى قفنا وحكدي كرا قف أولاد له قفنا أولاد الآن وكدي كرا إلهي مرة قارو قبل يولد وسود در كرا مرة وحوا قف قبل كل وسين كرا أرنت أيضا وأرن إلهي سبحانه وتعالى ربانية وإلهي وطلق عليه سيد إلهي القرآن كيسو كل يهاب لمن يشاء إناثا ويهاب لمن يشاء ذكورا إلى عدد قارو عليه إنه سي قبل كلية كون إنه ويل سي أو يزوجهم ذكرانا وإناثا وحلاقيها بأنه يسوق ضرر ويل شي قبله إنه يسوق ضرر ويجعل من يشاء عقيما حتى وحلاقيها بإلهي إنه كديجو ميدان دلين إنه كديجو هذا ولا لو أنا فهم برامج كان كهل لأنه وحياتها وحيابها السبب يومحوها حنون هذا كيني كرأيو يعني برامج كنا كقاعدة نقدرنا وجهرين ترى عبد الكريم ومحي للملأان su-aasha aad weydiisay markii aan ka jawaabo oo ah waa maxay dhalmo la'aan dhalmo la'aan waxaa la yidhaahdaa qofku inaanu ilmo dhalin muddo sanad ah isagoo markaasi xaas ah wax dawo ah uu qaatay oo markaasi ilmaha ama uurka loogu hortagayana aanay jirin Dr. Cabdikariin adigoo aad iyo aad u mahadsan maxaa sababa dhalmo la'aanta dhalmo la'aanta waxa ay leedahay sababo aad iyo aad u badan waxa ay ka imaan karaysaa dhanka dumarka markii la eego waxay ka imaan karaysaa ugxanta oo markaasi lahaan karaysa sababo aad iyo aad u badan oo ku keena cillado ugxanta waxaa kaloo dhici karaya tubada iyadana sidoo kale dhibaatooyin fara badan oo tubooyinka la xiriira tubooyinka markii la dhahayo waa laba tubo oo markaasi ka baxayo minka oo loo yaqaano labadaba fallopian tubes tubooyinkaasi cillado badan baa ku imaan karaya oo ay ka mid tahay inay xiraan ama sababi karaya tubooyinkaasi inay xirmaan ayadana waxay noqon karaysaa sabab kale oo aad iyo aad muhiim u ah waxaa dhici karaya minka gudihiisa cillado inay ka yimaadaan sida burooyin inay ka soo baxaan oo kale ama maxaan ku raahday infection uu dhibaatooyin ku sameeyo meelo badan in isqabsadaan oo kale ama waxaa kaloo dhici karaya minka afkiisiiba in cillad kale ay ka jirto waxaa kaloo imaan karaya minka waxa uu leeyahay xubno ku wareegsan oo markaasi samayn karaya in isqaqabsi uu ka yimaado infekshinada qaar markay dhacaan marka waxaasoo dhan waxay noqon karayaan waxyaabo ka hortaga qofkan inuu uur qaado ama dhalmo la'aani ay ku timaado waxaa dhici karaya xanuuno guud oo markaasi maxaan ku rahdaa qofkii ku keeni karaya caafimaad darri jirkiisoo dhan oo markaasi ayaguna sababi karaya in dhalmo la'aan ay timaado waxaa dhici karayaba in dhalmo la'aantu aysan ka imaanin qofka dumarka ah oo markaasi ay ka timaado ragga oo waxaa la yidhaahdaa iyadana male infertility so waxaynu ka hadlayno topiga maanta waxa weeyaan infertilityguna markaasi maxaan ku rahdaa waxa uu leeyahay sababo aad iyo aad u badan laakiin maadaama waqtigu uu inagu kooban yahay ama nagu yar yahay waxaynu ku soo koobaynaa inta dhalmo la'aantu ma wax dumarka kaliya ku kooban miya mise raggana way la wadaagaan
dhalmo la'aantu ma aha wax dumarka keliya gaar u ah ama ku kooban dumarka, balse waxa weeyaan wax raggana ka imaan karaya oo markaasi maxaan ku raahdaa noqon karaya cillad ka timaaday dhankii ragga. sidoo kale waxaa dhici karaya cilladdu inay labada dhinacba ka jirto oo markaasi ay tahay labada dhinacba in xal loo helo, inay hal dhinac noqotana way dhacdaa. Dr. Cabdikariin, adigoo mahadsan, dhalmo la'aantu ma ku dhici kartaa qof horay u soo dhalay? dhalmo la'aantu gaar uma aha qof aan horay wax u dhalin. waxay ku imaan karaysaa qof horay wax u soo dhalay iyo qof aan horay wax u soo dhalin intaba. waxaa la kala yidhaahdaa primary infertility iyo secondary infertility, oo macnaheedu ay ka dhigan tahay qofkani weligiis waxba ma dhalin, uurna ma qaadin, iyo qof ilmo soo dhalay ka dambana ay ku yimaadeen xanuuno markaasi ku sababay inuu ilmo dhali waayo. marka labadaba way dhici karaan inuu ku yimaado xanuunkani qof hore ilmo usoo dhalay iyo qof aan hore usoo dhalin intaba. Dr. Cabdikariin, inta badan markii ay timaado dhalmo la'aan oo lamaanayaasha ay wada nool yihiin ay ku dhac muddo ay wax dhali waayaan, inta badan gabadha ayaa waxaa la yiraahdaa orodoo dhakhtar aad, halka ragga aysan inta badan ay tagin goobaha caafimaadka. arrinta ayadaa sax miya tore? dumarka oo kaliya in la daweeyo isbitaalada ay tagaan arrin saxa maaha. waxaa la yidhaahdo infertility-ga dunidoo dhan qaabka la isu daweeyo waxa weeyaan labada qof oo la isku yidhaahdo couple infertility inay isbitaalka wada tagaan oo si isla mid ah ama maxaan ku yidhahdaa siman labadaba loo baaro oo markaasi cilladii jirta la helo, oo qofkii markaa cillad laga helo ama labadaba haddii laga helo sidaa loo daweeyo. hal arrin baa dhici karaya oo markaasi haddii labadooda mid ka mida gaar ahaan qofka ragga ah uu xaas kale leeyahay oo markaasi xaaskii kale caruur yaryar ay u hayso, markaasi way dhici kartaa in la yidhaahdo qof ka mida waxaa la ogaaday in fertility-giisa ama dhalmadiisu ay hagaagsan tahay, sidaa awgeed ay tahay qofkii kale in sidaa loo baaro. laakiin guud ahaan sida caadiga ah oo la isku raacsan yahay ama dunidoo dhan ay ku shaqayso waxa weeyaan labada qof oo ka cabanaya dhalmo la'aanta inay labaduba isbitaalka wada tagaan, la wada baaro, la wada daweeyo. Dr. Cabdikariin, infection-ka ma ka mid yahay waxyaabaha sababi kara dhalmo la'aanta? waxay weydiisay infection-ku inuu keeni karayo dhalmo la'aan. nacam, infection-ku waxa weeyaan sabab aad iyo aad u ballaaran oo dhalmo la'aanta ku keeni karaysa ragga iyo dumarka labadaba. infectionno waxaa jiro gaar ah oo la yaqaano sidii mambaskoo kale. ragga waxay ku keentaa waxa la yidhaahdo mambus orchitis oo ah maxaan ku rahdaa dhaawac inay ka gaarsiiso xaniinyaha isla markaana uu maxaan ku rahdaa qofkaasi noqdo qof aan ilmo dhali karaynin ama dhaawac uu ku yimaaday. sidoo kale waxaa jiro infectionnada sida TB-do kale, rag iyo dumarba saameyn ku leedahay, oo ragga waxaa laga yaabaa tubooyinka qaada biyaha inay xirto oo markaasi caqabad ay ku noqoto, waxaa loo yaqaano faaska ama fas differenska. sidoo kale waxaa dhici karaya dumarkoo kale inuu ku dhaco tubercular endometritis oo kale, oo endometriumkii ama uteruska gudihiisa ay ku samayso adhesions ama isqaqabsi fara badan ama qaybo badan oo jirka ka mid ah isku dhegdhegan oo markaasi loo yaqaano uterine synechia. amaba waxaa dhici karaya tubooyinka inay ka xirto dumarka. sidoo kale waxaa dhici karaya infectionnada loo yaqaano gonorrhea ama jabtada waxa loo yaqaano, ayaguna inay keeni karayaan dhalmo la'aan, iyo sidoo kale bakteeriyada nooceeda loo yaqaano chlamydia. waxaasoo dhan waxay abuuri karayaan qofku inuu ilmo dhali waayo oo markaasi cilladaasina asal ahaan ay ka timaaday infection noocyo kala duwan ah. kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdikariin Axmed Maxamuud oo ku takhasusay qalliimada iyo daweynta cudurrada haweenka oo uu warramay barnaamijka Weydii Dhakhtarka. qaybtii koowaad ee aan kaga hadalnay dhalmo la'aanta halka ha inoo joogo. intaan toddobaadka dambe ku kulmi doono barnaamij midkan la mid ah, waa walaalkiin Cali Maxamed Jeelo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo.